saddex shay oo dhacayo bisha barakeysan ee Ramadaan oo aan hadda ku jirno oo maanta tahay kow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Ramadaan Kariim. Halka aad toos nooga socotaan waa telefishinkeeni, waa janaalkeeni, waa janaalka aan ku kulmi jirnay, waa Soomaali Tijaabo 11. Saddex shay oo dhacayo bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan jeclaystay maanta inaan ku soo gudbiyo barnaamijkeena. Waxaan leenahay anfur wanaagsan. Xiliga aan wax soo duubayo waa anfur wanaagsan ayaan leenahay. Intaas kadib hadaa u soo galo saddex shay oo dhacay Ramadaanka. Waa kow. Ramadaanki waxaa dhacayo in shayaadiinta dhan la xirxiro. Shaydaan Ramadaanki ma ku dulmin karo. Shayaadiinta oo dhan Ramadaanka waa la xabisaya. Waa nabarka koowaad. Nabarka labaad hada u soo gudbo. Ramadaanki ma jiri doonto kuleyl. Idinka hadda bilaha kale Agoosto, September, November, December waxaa arki jirteen kuleyl ba'an. Ramadaanka taas way ka caymanta. Ramadaanki laba bis waa. Hadduu roob jirin waxaa jiri doonto daruuro iyo qabow. Haddii kale ma roob jiri karo. Labadaas bis roob ama qabow bis ma jiri doonto kuleyl. Haddii aad u soo daadego lambarka ugu dambeeya ee Ramadaanka dhacay waxaa ka mid ah in nabarka ugu dambeeyo Ilaahay Subxaanahu wa Ta'aala wuxuu naga xirayaa albaabta naarta oo dhan. Si fiican daga u fura. Ilaahay Subxaanahu wa Ta'aala wuxuu naga xirayaa albaabka naarta oo dhan. Marka bini aadanow hadduu Ilaahay naga xiro albaabka naarta adiga maxaa sugaysaa cibaadeyso. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.